وزير ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayso ayaa soo gaadhay degmada Garadeg ee galbeedka gobolka Sanaag. Wafdiga wasiirka ayaa dhagax dhigay xarunta ay wasaaradda xanaanada xoolaha ku yeelanayso degmada Garadeg. Munaasabadii dhagax dhigga oo ka soo qayb galeen maamulka heer degmada Garadeg ka wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada. Shirkadda iyadu fulinaysa qandaraaskan ayaa dhammaantoodba waxa hadalka iskaga kala dambeeyay mas'uuliyiintii halka ka soo qayb galay. Iyadoo wasiirka wasaaradda ay kula dardaarantay shirkadda fulinaysa dhismahan inay dhismo tayo leh u dhisto qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. inaynu goobjoog u ahnaano dhagax dhigan xafiiska xanaanada xoolaha ee degmada Garadeg kaasoo baahi weyn aan u qabnay maamul ahaan iyo shicib ahaan iyo dad ahaanba. sida la wada ogsoon yahay meeshan waxay ku jirtaa xudunta xoolaha dhulka ugu ballaaran ee xooluhu sida Soomaaliland laga warqabo ay aad iyo aad ugu dhaqan yihiin. muhiim bay noo tahay inaan laga sameeyo xafiiskii xanaanada xoolaha. anagoo in badan hawsha dabada ka wadnay waxa Ilaahay nasiib u siiyay inay dhagax dhigaan oo hawsha fuliyaan wasaaradda xanaanada xoolaha ugu horeeyo wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Sulub, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, agaasimayaasha kale, injineerada iyo dhammaan shaqaalaha baa waxa Ilaahay u fududeeyay inay maanta ay noo dhagax dhigaan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ugu hambaliyeenaynaa faa'iidooyin badanna insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa inuu dadka helo iyadoo aanay jirin meel hooyo ama xoolo aanu dhigano dawooyinka agabka aanu soo qaadanay marka talaalada aanu soo baxno waxaanu dhigan jiray guryahayaga iyo caruuraha dhexdooda aanu dhigan jiray baroon baynagu hay maanta Ilaahay mahadi waxaanu helay xafiiskii halkan waxaanu maanta ku daafuraynaa dhagax dhigidii waaxda xanaanada xoolaha ee degmada Garadeg oo uu noo dhagax dhigayo wasiir ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Yurubay. halkani waa hooygii xoolaha ee degmooyinka ugu waaweyn xoolo dhaqatada. waxa weeye anigu ku hadlaya afkii shirkadda Saudi ee dhisaysa xanaanadan xoolaha. waxaanu ballan qaadaynaa haddii Ilaahay ka dhigo inaan wax tayo leh aanu dhisi doono. maamulka degmada Garadeg iyo degmada Garadegna ay nala shaqayn doonto waxyaabo ku saabsan goobtan waxay nasiib u heshay degmada Garadeg in laga dhiso iyadoo degmooyin kale oo laga bixinayo khasnada dawladda waana kolley nasiib ay leeyihiin degmooyinka kale ee aan lahayn. degmada Garadeg waxa la gudboon inay ka faa'iideystaan goobtan ka shaqaale ahaan iyo ka dhismo ahaanba si fiican u ilaashadaan. sida la sheegay waxaan u soconay inaanu dhismahan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee maanta halkan laga dhisay inaanu goobjoog ka ahaano isla markaana aan wax weeyaan dhagax dhigaynaa laakiin dhagax dhiguun ma aha inta la dhagax dhiga laga tagayo. shirkadii waa arkaysaan way socotaa way taagan tahay insha Allah markaan maanta aan dhagax dhignay iyaduna way bilaabi doontaa isla wiigan gudihiisa. waan rajaynaynaa maalmaha fooday nagu soo hayaduna ay bilaabayso oo iminka qalabkeedii iyo xabaanteedii soo sidato. waxa weeyaan runtii budgetkan laga bixinayo dhismayaashan imika la fulinayo ilaa shalay dhowr meelood baan ood weynaan soo dhagax dhignay Burco. maanta Garadeg baan joognaa galbeedka waa ku noqonaynaa. insha Allah bariya galbeedba way ku jiraan. marka waxa weeyaan dakhligan dawladda ayaa leh ma aha waxay hay'ad bixisay malaha wax la nagu soo caawiyay waa cashuurtii dadka reer Soomaaliland ay bixinayeen hantidoodii qaranka ay dawladdu wax kaga soo celis wixii waa hanti qaran weeyaan. Muhammad Arsayre warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadeg.